Juxa oo doctor noqday. Juxa wuxuu soo bartay dhakhtarnimada waxaanu go'aan ku gaadhay inuu furto dhakhtar isaga gaar u ah si uu dadka ugu daweeyo. Juxa wuxuu kiraystay qol yar waxaanu ku dhajiyay qolka boodh weyn oo uu ku qoray dhammaan waxaanu daweynaa xanuunada idanka Ilaahay 20 diinaar oo keliya. Haddii aad dawada ku caafimaadi weydo waxaan kuu soo celinayaa 20kaagii diinaar iyo weliba 20 kale oo kuugu daro. Nin ayaa imi waxaanu akhriyay wixii ku qornaa boodhka waanu la yaabay. Ninkii wuu fikiray waxaanu isku idhi naftiisii, Juxa, inta aan kuu imaado ayaan xanuun beenana kuu sheeganayaa si aan kaaga qaato lacagtaydii iyo lacag kaloo ka badan. Sidaana anaa kaa faa'iidaystay oo bilaa dhib waxaan ku helay lacag badan. Ninkii wuu ku dhaqaaqay wuxuu ku fikirayay. Juxana wuu u tegay lacagtiina wuu bixiyey waxaanu idhi, muddo aad u badan ayaan xanuunsanayaa. Xanuunkayguna waa inaan waxba dhadhamin waayo. Cunto kastaan cuno waxba iima dhadhamayaan. Waxa iga maqan dareenkii dhadhanka. Dhakhtarro badanna waan u tegey. Mana jiro ilaa hadda dhakhtaraan wax daawo ah ka helay. Bal Juxuu i dawee. Juxana wuu yara aamusay isagoo fikiraya. Madaxiina intuu luxay ayuu soo qaaday dawo. Ninkii buu siiyey si uu u cabo. Ninkiina wuu booday waanu qayliyey waayo dawadu waxay ahayd dawo aad u qadhaadh. Isagoo aad u xanaaqsan ayuu Juxa ku idhi, waa maxay Juxa waxaad na siisay? Dhadhankeeda lamaba xamili karo, aad bay u qadhaadhahay. Juxa intuu qoslay ayuu ninkii ku idhi, waan kuu hambaliyeynayaa mudane. Way kuu soo noqotay dareenkaagii dhadhanku. Iminka waa adigaa kala garanaya dhadhanka. Ninkii isagoo xanaaqsan ayuu ka soo baxay dhakhtarkii Juxa. Juxana shaqadiisii wuu soo dhammaystay xaggii gurigiisana wuu u caraabay. Dhowr usbuuc kadib isla ninkii wuxuu ku soo noqday Juxa. 20 diinaar oo kalena wuu bixiyey isagoo ka cabanaya xanuun kale oo isna been ah siduu xanuunkii horeba been uga sheegay. Dr. Juxa, dhibaato ayaa i haysataa. Ilaa maalintii aan kaa tegay ilaa maantada aan joogno waxaan xasuusanayo male. Waxa iga guurtay xasuustii. Waxaan rajaynayaa inaad i daweyso. Juxa wuxuu gartay inuu ninkani caafimaad qabo wax xanuun ahina aanu haynin uuna wato khiyaamo kale. Wuu fikiray waxoogaa kadibna intuu kacay wuxuu soo qaaday dawadii qadhaadheyd ee uu maalintii hore siiyey. Intii aanu Juxa hadalkiiba dhammaysan ninkii wuu booday dhinac ayuu istaagay. Wuxuu yidhi, maya dawadaas ma cabaayo waayo ma xamili karo qadhaadhkeeda. Juxana intuu u qoslay wuxuu ku yidhi, waan kuu hambaliyeynayaa mudane. Waxa kuu soo noqotay xusuustaadii. Ninkii isagoo xanaaqsan welibana xoog u xanaaqsan oo lacagtiina ay ka khasaartay ayuu ka baxay Juxa waayo wixii uu ku fikirayay way u noqon waayeen. Juxana waxba wuu ka heli waaye waanu ka caqli badin waaye. Qofka isku daya inuu dadka khiyaameeyo kuma guulaysto oo wuu guul daraystaa.